nabadgelyo saaxiibayaal. Waxaa halkan ugu mahadcelinaa dhammaan inta nagu xiran ee gaarsiisay 500 subscribe waa xirnay. mahadsanidin dhammaantiin, aad ayaan kugu mahadcelinayaa. waxaa waaye tobankii dambe ee ramadaanka ah wax muuqaal ma soo gelinin. shalay maalintii ciidda ahayd ayaa hal muuqaal kusoo turnay, kadibna waa ka saaxanay. saaxiibayaal, markaas sida noola socotiin, commentiga usoo bixisiin, like u saartiin, subscribe u dhahdiin, aad ayaad u mahadsantihiin. laakiin waxaan haynaa wadadii 1k. adinka ayaana na gaarsiin karo. aad ayaad u mahadsantihiin dhammaantiin, mahadcelintiin lama soo koobi karo. saaxiibayaal, sidaad ogtihiinba maalin hore ama ciiddii aan dhehe waa la kala ciiday. qodobkaas muuqaalka xigeen xooga waan ka tataabtay, laakiin maadaama uu jirin amni fiican, amniskuna uusan jirin, qodobka inaan sii faahfaahiyo ma aana gelin. inaad tafaraaruq dhaana waxaa keena micnaha in lagu dhaqmi waayo diinta macnaha ama la raaci waayo. waxaan nahay Soomaaliya, haddaan dhaho dad waxaan nahay, waxaa la yidhi ku ciidaan nahay ama macnaha ku soomaan nahay. marka insha Allah bidnil kariim waxaan rajaynayaa inaan khilaafkan joojin doono. khilaafkaana waxaa keenay ugu horreyntii haddii laga cabsanayna madaxweynaha keena dhihi karaa. muuqaalka waa ka arki kartaa xoog inaan taabtaan dhahay dalo mashquul yaraa jira aan dhahay dib aan ugu baxay. marka waxaan rabaa kala ciidigaas la kala ciidiyaan rabaa marka inaan xoogahow maanta maadaama aan kaligay ahay oo kaamiradiy bis ay hor taallo, kaamirmaanadayda xitaa yarta aan haysto. waxaan rabaa maanta inaan qodobkaas si faahfaahsan aan uga hadlo, wuxuu ilaahay iga faahsiiyo. soo dhawaada dhammaantiin, aad u mahadsantihiin. muuqaalka isku day inaad la gaarto ilaa iyo dhammaadka, like-na saarto, subscribe-na saarto. waxaan aad uga hooseynaa xagga daawashada. fadlan waxaan idinka codsanayaa haddii aad muuqaal ka bilaabatay isku daydo inaad dhammaysato. mahadsantihiin. aan gudagalnay. maalintii hore waa la kala ciiday. dadna waxay ciideen axaddii, dadna waxay ciideen isniintii. dadka qaara waxay soomeen 29, dadna waxay soomeen 30. marka kala ciidowgii la kala ciidayna waxaa sabab u noqon karaan dhihi karnaa bishii aragtideeda oon sugnaanin. bisha haddii aragtideeda la sugo oo la ogaado oo maraqaati ay yeelato, ama ruux lagu kalsoon yahay orko ama ruux wanaagsan oo magaas faasiq ahayna loo dhaariyo, waa lagu bisha waa magaas haddii la arko ruuxaas arko ama ruux loo dhaariyo ama midkaan arko waa lagu afuri karaa ama waa lagu suumi karaa. marka qalad ka dhacaa ama wuxuu yahay in bish lagu afuray inta dadka afurtay 29 soontay ay ku afureen badankood wadanka Sacuudiga, ayagoo markaasi daliishanayo Sacuudiga inuu yahay dal islaama, dalka macnaha xajka dalka uu ku hadlo dal barakeysan inuu yahay, ayagoo markaasi daliishanayo. halka ay culimada qaarkeed ay diideen ay dhaheen dalka Sacuudiga waxaan kala nahay laba dal weliba kala fog, laba qaaradoodna kale ah, kuma afuri karna ayadoo culimada qaarkood dhahayeen. marka mar kale waxaan arkay culimada Sacuudiga oo mar la wareystay la yiri balse aad u aragtiin wadamada kale oo adinka idinku afurayo ama idinku soomayo sidaad u aragtiin, ayagoo la dhahay mar kale wareysaas camal loo qaaday ayaan arkay sheekadoodii. markii la weydiiyey wadamada kale oo idinku afuraya ama idinku soomayo maxaad dhahaysiin migii la dhahay, waxay dhaheen annaga waxay tusaale soo qaateen wadanka Yemen dal noo soo xigay ay dhaheen. wadanka Yemen dal ahaan noo soo xigay annaga oo nagu dhegan, wadankaasna waxay dhaheen annaga kuma afureyno, waxaan annaga aan aragnay ayaan ku afureynaa. su-aashaas oo la weydiiyey jawaabta ay bixiyeen waxay muujinaysaa marka in ay tahay wadamada kale annaga naguma afuri karaan, nagumana soomi karaan. haddii nagu afuraana ayagay u taallaa, haddii ay nagu soomaanna ayagay u taallaa. marka maadaama ayaga asaas dhaheen, annaga waxaa fiican in aan anaga aragtideena ku soono, aragtideena ku furno. waxaa waaye dadka culimada ayaa inta badan macnaha diinta looga dambeeya,
ayaa barnaamijkaasoo dhan waxaasoo dhan ayaga ay dadkan gacanta ka saaran tahay. Marka ayaga ayaa loo baahan yahay inay dadkan gacan ka geystaan, inay kala tag ka geystaan gacan ma ahan. Diinteennana ma ahan inay siyaasad isu beddesho oo loo maray macnaha wax siyaasad ah laga dhigo. Midda kale, madaxweynaha uu soo hadlay isagana maalintii 29 ahayd, isagoo ciid mubaarak dhahay. Soomaaliyana markaas aan weliba xaqiiq fiican aan laga helin. Marka inta ku afurtayna horta waxaa leenahay inta 29 ku soontina 29 ka soontay ee furtay maalintii axad ahayd ayagana waxaa leenahay soonkood horta Allah ka aqbalo. Anigana haddaan ka mid ahay dadka soddonka soomina soonkana Allah naga aqbalo. Dhammaanteen waxaa waaye waa hadda ninkii ku afuray Sacuudina wax weyn dhib ma lahan. Ninkii hadda oo haddana yiri annaga soddonka buuxsanaynaa habeen damaas khilaaf way ku jireen bishii dhaw doonta dadka yirina haddana dhib kuma jiro waa isku miishii laakiin dhammaanteen soonka Allah naga aqbalo. Dhibka jiray wuxuu yahay iskhilaafka macnaha in la isdaba maro. Khilaafka waxaa waaye dhibaato keenaya. Marka khilaafkaasna oo xagga diinta ahna waxaa loo baahan yahay culimmada inay istaagaan oo khilaafkaas xaliyaan. Waxyaabaha iska fudud ajir oo macnaha oo la xallin karo. Marka waxaasaa loo baahan yahay in la xalliyo. Madaxweynaha hataa inuu ka qayb qaato aad loogu baahan yahay. Sacuudi markii laga arkay asagoo dhihin meel laga arkay waxaan laga arkay soo dhihin wuxuu jamhuuriyadda wuxuu u dirayaa ciid mubaarak soo dhahay oo la soo dhigay. Marka haddii nala soo gaartay dhammaadka muuqaalka aad ayaad u mahadsan tahay saaxiibayaal. Sidaan hore idinku sheegayba waxaan ku soconaa waddadii aan ku gaari lahayn 1k. Fadlan haddaad nagu cusub tahay adiga bisaa ka dhiman haddaad hor noola joogtona isku day muuqaalada inaad la socoto oo mid u dhammaysato like-na saarto wixii aragtada ahna aad halkaas hoose noogu dhiibto insha Allah bidnal kariim. Maadaama hadda soonka laga baxay maarsina ay dhammaatay abriil inkastoo ayadana ay kulushahay waddankana macnaha kulayl ka jiro insha Allah bidnal saas ay tahay waxaan isku dayi doonaa inaan soo gelino muuqaalo xiisad iyo xamaasad wato annagoo weliba tixgelinayna aragtidiina waxay idinla tahay iyo waxa macnaha markaasi bulshada anfacad u leh. Nala soo gaartay muuqaalka dhammaadkiisa aad ayaad u mahadsan tahay.